السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada asxaabta walaashin markale muuqaal cusub asxaabta soo dhawaada waxaan rajaynaynaa caafimaad qabtiin markale muuqaal cusub channelkan ay daawanaysa waa sagal geeyo soo dhawaada asxaabta sagal cabdi la qabsa sagal geeyna keen waa luway hadba asxaabta soo dhawaada channelka subscribe noo saara like ta soo dhawaada asxaabta waxaan rajaynaynaa caafimaad qabtiin channelka waa channelkeena waana kanaalkeeni asxaabta soo dhawaada like-ta share-ta commentiga waxa dhan yaa asxaabay naga dhisa waxaan rajaynaynaa caafimaad dhamaantiin soo dhawaada asxaabta asxaab maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno farxii fiska iyo ninkeeda sida loogu dhagay iyo dadka sida ugu waashteen ma fahamteen asxaab horta waa ka yaabo islaamaha iyo nimanka oo markuu guursado gabar yar oo maaragtay oo ii sheegeen 15 jirta asna uu 70 jir iyo 80 waxaa leeyahay odayba guursada gabar buu guursada oo la balay nin rag ah waa balay laakiin islaan oo ama 40 jirta amba 50 iyo wax jirta amba adiga 60 ba jirta darabto markay guursato wiil yar waxaa leeyahay habar buu guursada muxuu ku falaya kaale horta naga qiimo malamiya waa ka yaabaniga asxaab horta midas waa dhaqan xumo bini aadamka ilaahay waa sameeyeen inuu maaragtay la kala waxa naga iyaga isku keenayba inna maaragtay la dhaho habar baa tahay saana noqotay kan bay waxaas dhan iyaga isku keenay horta dadka adduunka dhan ma baahan waa naga Soomaalida ma fahamtay kuwa maaragtay ii sheegeen dhacaynaayo ku dhagan farxifiska oo maaragtay ku haayo oo wiil yar bay guursatay maxay ilmaha ku faleysay day way rabtaa maxay u guursan wayso yaa isku feereynaysaa midda kale dhaqan xumaas hala joojiyo asxaabay waxa arkaysaa markii la isguursadaan oday iyo gabar yar u guursado oo noloshooda dhan halkaas ku baabi'iyo oo abiyuuso waxaan ku reerkooda ka gateen yaa oo waxaan ku yiri wiilka asaga xorriyad ku guursado oo habartan asaga bushkaasoo damcay guursaday laakiin gabadha waa loo afduubayaa waa loo xoogayaa reerkooda habar iyo tacmid qaadi ku leeyihiin waxaan ku yiri kaarba ka socoto ma fahanteen asxaabi raad noqday xaafad doore iyo maaragtay iyo ciyaal la fandig xaafada ciyaal lama jirto laakiin doorada maaragtay iyo anaga qeylinaysa iyo meelahaas asxaabi marka saas jirto marka waxaa la rabaa dadka in maaragtay cadaalad ahaan loo fiiriyo maaragtay loo dhaho waa waxa isku leeyahay calaf midda kale Soomaali horta wax walba inay caayaan in aflagaadeeyaan inay wareeriyaan inay maaragtay bal had fiir sawir halkaas in soo saarayay odag duqoobay oo gabadh xuntaa baasha ku habaaya iyo farxifiska isku fiiriyo bal yaa waa yaabaysiin aan ku dhax soo ogyahay ma gabadhu dhalay karto yaa marka xaq darro way sidaas idan waa banaadi moole gabadh xunta waa dhimatay wiilku ma dhimano ma hafrane labada dhan maaragtay uu ka dhisan yahay oo dhanka maaragtay la dhaho markii la dhaho nafaqada waa saanta soo korinaysa asna caqli la weyn markii la dhaho dhanka kale oo ii sheeg naagnimada xalaasna taa ugu filanta suur ugu noolaanaya laakiin waxa meesha ku dhintay oo ba'ay oo hoogay oo waxaan ku ri kaart ku dhacdo waxaan ku ri dhan kasta ka dhimanta ma taqaana waa gabadha yarta masaakiinta mar waa baqaysa mar uu abiyuusaya mar kaar baa haysato odayga habartii baa afka balaayo u galiyo nolosheeda gad ku riday yaa kama carabi karto waxaan ku iri ma waxaas oo dhan ba jir ma fahanteen asxaabay marka waa xaq darro sidaas waa xaq darro weeye fiir hadda gabar yar oo oday soo guursana ayadoo wali waxa arkin oo nolol dhan u bilaaban tahay wax dhan aqoon xataa fiir odaasha maaragtay inta soo ordaan waxa la dhahay oo soo xarifiyaan waxaan ku gabdhaha ayay ku dhiganayeen gabdhaha ma fahamtay yaa marka xaq daradaas inaad inta ka indhisaabtiin horta sida waxa wax kasta oo mar kasta la arko bini aadamka waxa dhigtaa wax caadi ah markii rabta ana maaragtay wax markii aragtay ku cusub tahay yani lama qabsanaysid dhaqso lama qabsanaysid ma aqbalaysid dhaqso waxay kula noqonaysaa confuse maaragtay wax maaragtay yani aadan aqoon jirin laakiin markii wax aqoon jirtay maaragtay markasta aragtid yani wax dhib kula ma yeelanayso haddana wixii adoo arki jiray haddana haddii markasta aragtid la aflagaadeeyo oo laga xumaado yani bulshada badankeeda aysan yani taageersanayn
waxaas waxay kula noqonaysaa qof kasta marka aragto waxay kula noqonaysaa wax yacni saxaabi daaqadan maskaxeed tuka nafta noo keenay waxay kula noqonaysaa mar kasta maaragtay inaa ay kugu cusub tahay oo kaleeto marka haddii wixii aan caadi laga dhigo oo maaragtay dhib loo yeelin oo maaragtay normal la aqbalane yani wax dhib ma yeelanayso ma fahamteen asxaabi marka soo dhawaada waxaan leeyahay marka gabadha laga fuqo odayaashan iyo gabdhaha odagan daqoobay oo fiiriyo balalkan gabadha ku habaya faantada odagan daqoobay gabadha faantada ku habayo halaga fujiyo asxaabi marka farxifiska laga fuqo farxifiska maahan habar waa islaan bal dhigi kara yani maahan habar waa islaama meesha ugu fiican yihiin yani hadda waxay ka bixisay yani islaan naagnimadii ka bixisay waa islaan habar ma gaarin waa yar tahay weli waaye ha inka raaxaystaa inka bashaasho asxaabi ha laga fuqo soomaali horta indha adeyga ka badateen ha laga fuqo gabadha ya ka leexda ya iyo wiilkii gabadha laga leexdo wixii xaqdood maahana waxaawe xaq hee maxaa la dhahaa xaq darro wey wixii xaqdood maahane wiil uma doodaysaane naga dayacirtay wiil u doodaysaan gabdhaha ma u doodu yararka masaakiimaha oo la abuusayo marka wixii waa cadaalad maaha naga dayacirta ilmada riyaalada Soomaalinahay waxaan ku leeyahay waxa la Soomaali dadka oo Soomaali adduunka ugu dhaqan xun wayaa la yiri ya naga dhaqan xumada wadiin warbaa laga fuqa gabadhii wiilka hal iska dayacmamada tuura anigu ma haysto ma ku dhiganay awalba laakiin wala ma yaabay laakiin waa kiya wax ka bad saaid booga bad qof hadda kaga darinta qof uu saacaynayo markuu saacay hadana dib ku saamaana hadana wixii wada la fal xumaanayad waradu xirtaba ha ahaatay asxaabay waxaan leeyahay farxifiska laga fuqo hal iska sii daayo calaamadeeda hala tuuro asxaabay farxifiska la iska dhaafo waxaan leeyahay gabadha soo door masaakiina wiilkaas ayaduna maxaan ku wiilku waa ku duceystay inta xalay 7 biro Soomaaliya 7 biro Soomaaliya ku duceystay la yiri Ilaahu isahal marka Ilaahay baa u sahalay teena ku dhigtiin maahan oo waxaan ku raad sas u xaqatiin xaq darro way midaas Soomahan ha soo qora ha wax xaq darro soo qora midada kale xitaa mid runta oo maarta la rabo hadda rabtina xaq u doodin xaq qadartiin waxa waaye gabdhaha yar yariiska ah oo maaragtay 15ka iyo 16ka jiro oo 20ka gaarin ma fahamteen asxaabe in gabdhaas u doodin oo ka celisan odayaasha qoxobiyaasha oo ka mudaharaadin sababtoo ah gabadhaas 15 ciladood ba ku dhacaysa oday 80 jiro waxaan ku cimrigiisa soo dhamaaday ya markuu gabar yar guusho ina iska furto maana dad waa qawhaya xoogaa ka dib talafaya hadduu si talafin xitaa anu waa bakaaba odayaashu waxay u guursadaan gabdhaha shaqooyin ku rogaan miya ma qaan hay iska fikireen cilo ku dhintan bik fikireen baa wasiir ma qaan waxay tahay kullu gabadhu xitaa rafaad ba u sugnaaday xitaa rafaad ku sugnaaday markuu odayga talafo odayguna markuu gabooba hadda oo 80 iyo maaragtay iyo meelahaas gaaro tajiradiisa iyo quuqdiisa badan iyo xanuunkiisa Soomaan marka odayga saas xanuunka gabadha xanuunkaas uma dul qaadan karto gabadha maaragtay wiil yar oo de horta caafimaadka Ilaahay waa bixiyo laakiin wax walba waxa jira wax dabiici ah markasta imaado qof wal markasta xanuunkiisa waa oo maaragtay iska imaanaya gabowgi iyo wax walba isku soo dhawaadan kuri caafimaad sidoo hore uu dhiigisa difaaciisa wax walba adigu iska celin laha ma laha oo yani waxa u diidayo yani waa gaboobade marka gabadha rafaada u sugan oo dhankaas booga sugan midda kale jirta xitahay rafaadka kale ku sugan waxa hada duka dhinto gabadha mar walba la dhimanaya laakiin yani qof gaboobo waqtigiisa dhamaaday macquul ba inuu xanuun u horeeyo qabto ku dhinto midda kale xitahay ilmihiisi ma la koraayo ma la weynaanayo waqti ma siinayo ilmuhu ka dhalay waxa la ilmaha kala haraanti baa la ilmaha haraanti uu saga reebay ma fahanteen ma korsanayo ilmihii maaragtay waqti lama qaadanayo yani hadduu xitaa maaragtay uu noolaan lahaa waqti qaadan lahaa hadduu waqti qaatana asagoo cad uu qaadani oo qof Ilaahay cimriga u dheereeyay marka saxaafiyo ugu dheeraada farxifiska laga fuqo bas weyn iska badan maaragtay odayaasha habraha iyo waxa dhamma ka hadli karta ma fahamta laakiin sideedaba habraha laga fuqo odayaashana yani macnaheega odayaasha
ama ha laga wada foqo ama habraha laga foqo ama odayaasha iyo gabdhaha iyo habraha laga wada dhago ama habraha laga foqo macnaheedu habar iyo wiil yar la taagayo gabar iyo oday weyn yani caadi laga dhiganayo hala joojiyo dhaqankaas ama dadka hala wada taago hala wada joojiyo ama faraha laga wada qaado waxa u dhaxeeya malahan asxaabi waan salaamay Soomaaliya waan salaamay dhamaantiin firi wala shirgalay meel gar hal garsiyo odayaasha hal garsiyo يعني dadka u doodayo waan salaamay dhamaantiin assalaamu calaykum